waa caawa iyo falanqaynta iyo gorfaynta doorashada dalka. Dalkeennu wuxuu galay wakhtigii doorasho. Waxaa jira culaysyo badan iyo gacmo shisheeyo kuwaasoo doonaya inay saameyn ku yeeshaan doorashada. Waxaana jira cadow badan oo doonaya inay dalkeenna cagaha qabtaan oo doonaya inaysan noqon dowlad awood badan. Sidoo kale ay diidan yihiin inay ciidamadii Soomaaliya ee awoodda badnaa ay dib u soo noqdaan iyagoo beri ahaa libaaxyadii Afrika, iyagoo ka walwalaya inay dib u soo noqdaan. Dadka Soomaaliyeed ilaa iyo hadda waxaad moodaa inay qabiil iyo qabyaalad dhexdooda isku haystaan oo aynan ku baraarugsanayn dowladnimada heerka hadda adduunku marayo. Haddaba maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed? Hase ahaatee yaa ku habboon inuu dalkan iyo dadkan inuu u noqdo madaxweyne kana samata bixiya waqtiga adag ee lagu jiro iyo waayaha haddeer oo ah Soomaaliya oo marba marka ka dambaysa soo kabcaysa. Hase ahaatee cadowgeedu aad u fara badan yahay iyagoo doonaya inayna arkin dowlad awood badan oo ka talisa geeska Afrika. Balse Soomaalida waxaa ragaadiyay isqabqabsi dhexdooda kaasoo ilaa hadda ayna Soomaalidu ka qaangaadhin xagga isqabqabsiga iyo siyaasadda. Waxaana moodaa inay mar kastaba ay dib u sii dhacayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwaasoo fiirsanaya dantooda gaarka ah